wiilkan waa mid ka mid ah laacibiinta ugu qatarsan kubadda cagta waxaana loo yaqaanaa naanistiisa caga dahab. kubad kasta oo uu goosh ku tuuro waa ay dhalataa, weligiisna gool kulaad lagama qabanin, laakiin lacag uu qaata darteed ayuu noloshiisa dhan u baaba'day. mid ka mid ah laacibiinta la dheelaysa asaga waxa uu siinayaa lacag, waxa uuna ku dhahayaa waa inaa hal gool khasaarisaa. ugu dambeyntii lacagtii ayuu qaatay, goolkiina waa uu khasaariyey. taageerayaashii oo dhan ayaa xanaaqay, waa ay soo degteen lugaha ayna ka jabiyeen asaga. maalintaas kadib lugihiisa kubad waa uu ku dheeli waayey. saaxiibkiis ee asaga lacagta siiyeyna waxa uu ka baxay garoonka asagoo qoslayo. sanado kadib saaxiibkiis Han waxa uu ka mid noqday tababarooyinka adduunka ugu qatarsan, caawiyihiisana waxa uu noqday ninkii loo yaqaanay caga dahab. lugihiisana qalaas waa ay u dhammaadeen, xataa ma awoodo inuu ku socdo. Hanna waxa uu la dhaqmayaa si dulanimo ah, welibana dadka hortooda ayuu si xun ula dhaqmaa. maalin caga dahab waxa uu ka codsaday saaxiibkiis Han in uu siiyo fursad, maxaa yeelay waxa uu rabaa inuu noqdo tababare, laakiin Han waxa uu ku dhahay weligaa adiga tababare ma noqonaysid. ma xasuusataa maalin aan lacag ku siiyey waxaa raba taageerayaasha inay lugta ka jabiyaan, wayna dhacday. caga dahabna hadalkaas qalbigiisa waxay ugu dhacday sida biriqdii oo kale. waxa uuna wadada ku socda asagoo qamareysan oo isla hadlaayo. hal mar ayuu istaagay, waxa uuna arkay ciyaar ka socota telefishin wadada ku dhagan. waxa uuna soo xasuustay markii uu ahaa jiray laacibiinta adduunka mid ka mid ah. waxa uuna go'aansan inuu soo celiyo maalmahaas. markii uu gadaashiis fiiriyey waxa uu arkay nin qashimada aruuriya oo ku aalmiteynaya qashimada korkooda, waxaana la dhahaa Sing. waxa uuna dhahay kubadda cagta ma ahan in sidaas loo ciyaaro. kadibna waxa uu tusay mid ka mid ah xarakooyinka kunfuga. kadibna Sing ninkii waxa uu siiyey waraaqad ay ku qoran tahay ciwaankiisa. caga dahab intuu xanaaqay ayuu gasicii qamrada uu ka cabaayay uu dhex geliyay waraaqada ayuu ku tuuray. kadibna Sing awoodiisa oo dhan ayuu waxa uu ku laaday gasicii. caga dahab waxaas oo dhan waxa uu arkaa riyo, waa uuna iska baxay. kadibna Sing waxa uu arkaa nin iibiyo filinjeerada la soo celiyey, welibana qaadil ah filinjeer. waa uu laadaya filinjeerka, waxa uuna fuulayaa qaybta kore. kadibna waxa uu arkaa gabadh iibinaysa kackac. markii cajiin qasaysan waxay ku qasaysaa kunfu. kadibna kackaceeda ayuu cunayaa weliba asagoo haysan lacag. waxa uuna u bandhigayaa kabihiisa bedelka lacagta. kadibna naagtii dukaanka iska leed ayaa soo baxaysa, waxay arkaysaa kabaha way qabanaysaa, qashinka ayay ku ridaysaa. kadibna Sing waxa uu aadayaa meel uu ka shaqeeyo saaxiibkiisa, waana mid ay kunfu isla bari jireen asaga. magaciisana waxaa la dhahaa madax shub. maamulihiisana waxa uu la dhaqmaa si xun, madax ayuu dhalo uga jabiyaa. waxa uuna ku qasbayaa masrax inuu fuulo oo dadka qanciyo. kadibna waxa lagu amrayaa madax shub inuu Sing kala qayb qaato masraxiyada, maxaa yeelay waxa uu yaqaan qaabka loo dheelo dansiga. kadibna waxay soo bandhigayaan bandhig aad u xun, taageerayaashu waa ay xanaaqayaan wayna jajabinayaan ayka. markii uu Sing isku dayo inuu iska celiyo waxa uu soo xasuusanaya in saaxiibkiisa laga raacdeenayo meesha. waxa uuna raaligelinayaa taageeraha si shaqada saaxiibkiisa aan loogu burin. maalinkii xiga asagoo raba caga dahab inuu derbi ku kaadiyo ayaa waxa soo raacdeenaya dadka. waxa uuna arkayaa gasici oo shal qamrada ka cabaay oo Sing soo darbeynaya oo ka dhex taagan derbiga. waxa uuna ogaanayaa wixii uu riyada u maleynaya inay yihiin wax dhab ah. markii uu derbiga ka soo siibo gasaca, derbiga waa uu dumayaa. waxa uuna arkayaa Sing oo la dagaalamaya dadkii masraxa ku dilay habeen hore, kadib markii ay diideen inay raali geliyaan asaga. kadibna asaga si xun ayuu u galay, waxa uuna ul ugu dhigay kubadda cagta ilaa ay ka qeyliyeen ay ka raali geliyeen asaga. kadibna waa uu ka soo tagay, waxa uu bilaabay inuu cabo biyo. kadibna waxa uu imaaday caga dahab, waxa uuna baaray lugaha Sing. waxa uuna ogaaday inuu Sing yahay qofkii bedeli lahaa booskii uu ka baneeyay kubadda cagta. waxa uuna rabaa inuu gaarsiiyo fariintiisa caalamka. wadada kaliya caalamka uu ku gaarsiin karo kunfugu inuu qatar yahay waa banooniga. Singina waxa uu ka helay fikradaas, waxa uuna rabaa inuu hadeertaan bilaabo tababarka. caga dahabna waxa uu ku yiri ugu yaraan waa inaa haysataa kabaha sportiska. markii uu ayad u laabtay, ayadana waxay ku tiri kabahaaga waa tuuray. kadibna asagoo xanaaqsan ayuu iska baxay. ayadana waa ay la kaftamaysay, kabaha ay u soo bixisay waa ayna siisay, weliba ayakoo tolan. labadoodana waxa ay raadiyeen dadkii kunfuga la bartay ayaka, waa ay is aruursadeen. kadibna waxay noqdeen koox si ay u tusaan caalamka waxa uu kunfuga yahay. markii uu tababarka bilaabo, qof kasta waxa uu bilaabo inuu soo bandhigo. Singina kubad ayuu laaday, waxa ayna ku qaadatay inay soo laabato kubaddaas 2 saacadood. kadibna caga dahab waxa uu ku yiri waa inaa bartaan saa u xukumi lahaydeen awoodiina, waana inay noqotaa mid ku munaasab ah kubadda cagta. kadibna ukun ayuu ku dhahay ku almiteeya. Sing lugtiisa ayuu ku jabtay, mid ukunta jecel ayaa ku jiray, ukunta kabta ayuu ka dhex cunay. kadib saaxiibadiis kale ayaa ka jiida meesha, tababarana ukun kale ayuu Sing ku tuuray. waxa ayna ugu jabtay meel uusan ka cuni karin saaxiibkiisa. kadibna ukun kale ayuu qabsaday Sing, waxa uuna kaga jabiyay afka saaxiibadiis mid ka mid ah. kadibna kii ukunta jeclaa waxa uu bilaabay inuu ka cuno ninka kale afkiisa. maalin tababaraha waxa uu maqlay jug culus, waxa uuna aragay biyaha miiska saaran inay nunuxsanayaan. waa ay soo wada baxeen si ay u arkaan qofka ridaya darbadaas. waxay ogaadeen inuu yahay Sing oo ku tababaranayo kubad. maalmo kadib koox ayaa balansatay, waana kuwii hadda ka hor ay isdagaaleen asaga. ciyaartii markii ay bilaabatay, Sing waxa uu dareemay inay kuwan u imaadeen inay argutaan, aysan u imaanin inay ciyaar dheelaan. markii la baaba'ashay oo la garaacay ayuu Sing dareemay inay awoodooda soo laabatay. mid kasta oo ay ka mid ah waxa uu bilaabay inuu isticmaalo awoodiisa kunfu, ilaa markii dambe ay kooxdii fowdada bilowday ay raali gelisay ayaka. caga dahab kooxdiisa waxa uu bilaabay inuu u balamiyo kooxyo waaweyn. Hanna waxa uu daawanayay mid ka mid ah ciyaartoydiisa oo ku tababaranaya biyaha dhexdooda. in kubad lagu dhex shoodo waxay u baahan tahay awood badan. markii uu darbeeyay kubadda waxa dhacay qarax weyn. kadibna Han waa la soo wacay, waxa lagu dhahay
saaxiibka cagadahab waxa uu soo wataa koox kadibna haan waxa uu aaday saaxiibkiis hore ee cagadahab kooxdii uu samaystay markii uu aragay waxa uu isdhahay saaxiibka cagadahab waxa uu soo aruursaday qashin sababtoo ah waxa uu fiiriyay muuqaalkooda bis muusan fiirin qalbiyadooda kadibna waxa uu bilaabay inuu ku jeejeeso saaxiibkiisa waxa uuna ku dhahay sidii waagii hore oo dhihi jiray kabaha iyo titir aniga kadibna kooxdiisa ayaa weerartay kabii ay ka qaadeen waa ayna ka tuureen maalinkii labaad Singh waxa uu la kulmay gabartii uu jeclaa oo cajiin qasi jirtay waxa uu ku dhahay ayadoo dirac fiirinayso anaa ku gedi doona marka aan caan noqdo sida Cabdixaliim Cali oo kale gabartan waa ay la yaabanay sababtoo ah wajigeeda waxa ka buuxay finan waxayna aamintay inuu ku jeejeesay uusan jecleen kadibna waxa uu dhahay waxa taa gabarta adduunka ugu qurxoon hab ayuuna siiyay waxa la gaaray kulankoodii ugu horeeyay ciyaaraha waxa ayna la ciyaarayeen koox la dhaho Tufu bilowgii hore waa ay yeesayeen sababtoo waxa ay fiiriyeen dharkooda daqiiqad kasta waxa laga dhalinayay gool 94 gool ayaa looga badiyay haana waxa uu ciyaarayay golf waa la soo bacay waxa lagu dhahay kooxdii waxa ay ku badiyeen 94 gool saaxiibka kooxdiisana caadi ma ahan Singh saaxiibadiis waxay aadameelaha gabdhaha isku qurxiyaan waxay rabtay in make up loo mariyo si wajigeeda finanka ku yaal ay u qarsoomaan markii uu aragay waxa uu ku dhahay sidaadii hore ayaa ku qorxooneed maxaa u marsatay ayadana markii hadalkaas afkiisa ka maqashay waa ay ku faraxday laakiin markii ay shaqada tagtay naagtii ay u shaqaynaysay waa ay ka xanaajisay waxayna damacday inay ka tirtirto wajiga laakiin ayada waa ay iska difaacday ayadoo isticmaalaysa kung fu waa ay murugootay sababtoo ah waagii hore ayadoo isdifaaci karta ay ka aamusneed haana waxa uu isku day inuu ku sameeyo saaxiibkiis kaartadii oo waagii hore ku sameeyay oo kale waxa uu ku yiri saaxiib cagadahab aniga iida sanadkan koobka anigana waxaan ku siinayaa lacag laakiin cagadahab markan waa uu diiday inuu qaato lacag waxa uu ku dhahay waagii hore waxa raadi jiray lacag kalkan laakiin waxa rabaa inaa helo koobka wadanka oo dhan kadibna waa uu kacaya oo iska baxaya kadibna Singh waxa uu tagay dukaanka saaxiibadiis ee ka shaqeynaysay naagtii iska lahaydna waxa ay ku tiri aniga waa raacday sababtoo ah cajiinka waxa ay ka badisay cusbada dadkii wax iga gidi jira dhanna waa ay cuni waayeen ka kaca dhanaankiisa laakiin asaga markii uu dhadhamiyay waxa uu ogaaday cusbadan inay ka imaatay ooyinta ee ooynaysay gabarta sababtoo ah markii ay qasaysay ay ooynaysay saas ayuuna dhanaan u noqday kadibna waxa la gaaray finaalkii waxaana dheelay kooxda sheedaanka oo lahay Han iyo kooxda saaxiibkiisa cagadahab ee la dhaho Shaolin midaysan ogeyn ayaa ah kalkan inay ka adag yihiin kooxda sheedaanka sidii hore maxay ilahaan waxa uu ku duray muqaddaraad awood leh si jirkooda awoodiisa ay u sii tabanjibaaranto kadibna Singh waxa uu isticmaalay awoodiisa si tartiib ayaa loo qabanaya kubadda kalkan awood iyo kaarta ay isticmaalay waa laga qabanaya sidoo kale awood kasta iyo dhinac kasta markii uu ka weerarno waa uu ka dhalin weynaa kalkan goolhayaha kooxda Shaolin ayaa la weeraraya dhowr mar ayuu shoot ka qabanaya si kooxdiisa aysan u niyad jabin ayuu xanuunkiisa qarsanaya gacmihiisa waa ay dhiigayaan awoodda kooxda sheedaan awgeed kalkan shoot xun ayaa lagu soo ridaya ilaa uu ka dhaco boorteeriga kadibna wajiga ayaa banoon loogu dhufanaya waxa uuna ka dhaxbaxaya shabaqa kadibna waxa soo galay golhaaye calool bir ah waa uuna ka adag yahay kii hore kadibna waxa la gaaraya waqtiga bareega kooxdan waxa ay bilaabayaan cabsi ay ku raba inay fakadaan Singh iyo cagadahab waxa ay ku dhahayaan waa inuu kunfuuga guuleystaa markaas dadka waxa ay u isticmaalayaan si caadi ah markay ciyaarta bilaabato sidii jinjarada ay isku fuufuulayaan sababtay sidaas u sameynayaan wax kale ma ahan boortiyeeri ma haystaan kadibna Singh saaxiibadiisa ay maata ayadoo wiil iska dhigayso waxa ayna garoonka soo galaysaa ayadoo u socoto qaab cajiib ah laakiin waxaas oo dhan waxa ay ku dheelaysaa markay barti ku dhufsato madaxa midaas oo kaliya ma ahan waxa ay tagtay gool qaldan kooxdii oo dhanna waa ay nijabtay markii ay goosha gasho waxa lagu soo ridayaa shoot aan caadi ahayn oo waliba dab ah ayadan waxa ay u qabanaysaa si caadi ah ayaka dhan waxa isku hayaan indhaha waxay aaminsan yihiin saacada inay dhimatay markii ay u soo baasto waa ay farxayaan kadibna Singh ayaa awoodiisa ku sii daraya kubadda awoodiisa waxa ay qaadaysaa kooxda sheedaan oo dhan boortiyeerigoodana dharka ayaa ka biibaayaba kadibna kooxda cagadahab waxa ay ku guuleysanaysaa koobka haana inuu xanaaqo ayuu waxa uu ka soo dhacaya jinjarada saas ayuuna ku dhimanayaa filimkan waxa uu ku dhamaanayaa Singh oo ku dhex ordayo wadada waxa uu arkayaa dadka dhan oo u isticmaalaya noloshooda caadiga ah kung fu filimkana waxa uu ka hadlayaa weliga ayaa laga caqli badin lacag darteedana ha u burburinin mustaqbalkaaga guushana ma ku xirno dhalinyaranimada waxa laga yaabaa inaad guuleysatid adiga oo duq ah filimkana waxa qoray Kabtan Majid waxaan codeeyay anigoo Cabdixaliim Cali waxaan edit gareeyay isla Kabtan Majid waxaan idin soo wadnaa muuqaalo dab ah maca salaama